buuxinaya waxaa ku qoran hadda ka hor wadan kale ma ka timi kiiskaaga markaan akhriyay waxaa tiri maya immigrationka taasi kugu qabsaday may waa qaldan tahay de fiiri waa ta akhriya aniga oo newska aan ka akhriyo midda fiiri laakiin anaa hor fadhiyo ii sheegi karaa hadda midda hayo dhibka jira waxa waa hadda adiga aad iga sheekeynaysid xaaskeyga iyo immigrationkeyga iyo gurigeyga iyo nolosha hadda ka hadlaysid immigration wax waa qoran yihiin haddaan geli karnaa no fiiri waxaan waa qoran yihiin wax qoran waay no aniga keeska ka hadlaysid intuu sadhicinin wada hadallo badanaa ka horeeyay ayaa lagu dacweeyay discussion badanaa ka horeeyay ma fahmaysaa hadda adiga kees lagu soo dacweeyay adiga looyrintaada haddii ay dawladda negotiation hadal u socdo markii la heshiin waayo soo maxkamad laguma geenayo maxkamadda markii la tago laakiin aniga background case-kaaga waxa idinka dhex socda maan ogahay access umili ani soo ma ka hadli karaa ilaa adiga ku weydiiye maahan aan ku dhoo zakriyo adigii loorintaada shalay miitina la gasheen kuwaase maxaa isdhahdeen inaan ku dhaha maahane ma sheegi karaa yes or no de ma sheegi karaa ma ogaan karaa ma ogaan kari laakiin inaa ii sheegto su'aal iga soo baxday waxaa jira kiiskan hadda goonfam baad samaysatay lacag baa ku aruursanaysaa hadda waxaad maraysaa $30,000 $30,000 ayaad maraysaa wax ma kartaa lacag maya okay hadda kiiskan ku sugan lacagtaad aruurinaysa waxaad ku soo qortay ingiliiskaaga in aad qofka firimbiga yeeri in adigu aad tahay sax waxaad kaloo ku soo qortay in aad kiiskani aad baarayso yaad baaraysaa ma dabba may waxaan ku soo qoray waxaan ku sheegayaa Zakariya arrintan soosan kugu sheegay I hope fiiri markii aan wada hadlayno inaan wax oo logic ah waa waxaan akhriyay fiidi ha wixii logic waxaan aan akhriyo kuma sheegay wax logic waxa ku qoran inaan waxaan adiga aad baaraysid aan ku fasirahay if you give me the chance waa ku fasiri karaa aniga saan kugu sheegay arrintan gadaalan ka soo galay mudday socotay gadaal markii aan ka soo galayna waxyaabay aniga waxaan qarinayo TV-gan soo fariista aniga ma dhuumanayo ma fahmaysaa qof dhuunta aniga ma ihi qof oo boorshid loola imaan karana ma ihi aniga warkeyga waa cad yahay laakiin dadka Soomaaliyeed boorshid oo tagaysa maya may aniga ayaga boorshid iyo lama imaan karaan laakiin waxaan ku ogahay yani nabi Muuse ayaa nin yahuuda oo Romankii raranaya ka dhiciyay marka ninkii la raranayay ayaa wuxuu yiri war ninkeyga ani idilay maxaad ka rabtaa ma fahmaysaa nabi Muuse oo markaas ka cararay waxaan ku sheegayaa qofka bini aadanka ah haddii uusan dhibka jiro ugu weyn waxay tahay waxaan ku sheegayaa ma kofayaan fadhiyay gabdho Soomaali inama Soomaaliya fadhiyay waa la sheekaysanayay shirkii sheekadii qof ka mid ah ayaa wuxuu hadlay anigu wuxuu ugu yiri I assume you're a Muslim buu ugu yiri waxaan u maleynaa inaan Muslim tu ugu yiri ani waxaan ku iri Soomaali Soomaalid ha adiga miyaad Muslim inaan ku iri ani Muslim ahay waxay ugu jawaabeen qofku wuxuu yiri no aniga Ilaahay ma aaminsani fiiriya aniga Ilaahay ma aaminsani okay waxaan ku sheegayaa marka muxuu ku keenay marka may sheekadii la haystay marka waxaan ka wadaa adiga marka Zakariya waxa dhehaysid iyo waxa weydiinaysid aniga waxaad igu yeertay no waxa igu yeertay inaan wax ka weydiiyo waxa igu yeertay dadkana aan u sheegno waxa jira waxa igu yeertay goofanka wax u sameeyay waxa igu yeertay dadka aad baarto lacagtan wax u dalbatay waxaad igu yeertay waxaad igu yeertay inaa wax iga ogaatid Sooma ahan oo aan xog wareysatid ya laakiin ana aan ku weydiiyo no waxa i weydiinaysid basically waxa waaye wixii aan ku sheego meeshii mugdi ka galo ayaa wax iga weydiinay Soomaa jamaal marka wax ku weydiibo kama jawaabaysid hadda waxaan ku yiri goofankan waxa u samaystay goofankan waxaan u samaystay fiiri no waa ku siinaa goofankan aniga malihi Somali Watchdog Group ayaa iska leh waa organization xagee ka tirsan organization oo state kan kala jisgaraysan ma fahmaysaa oo dad badan leh no dhalinyaro iyo Soomaali dhalinyaro kamid ah waa magaalada hadda informationkaas rabtid waad helaysaa ma group waa adiga aad madax u tahay ma ani madax u miya aniga waxayna baarayaan waxyaabahan waxay baarayaan malahan groupkan waxay la dirirayaan musuq maasuqa waxay la dirirayaan
maxay ahayd abuse of power booliiska hadduu dadka dilo maxkamadaha qofkii dembi aan lahayn lagu helo stateka sharciyadooda health careka let me finish no maya let me finish Soomaalidan business iska leh oo health carada iska leh let me finish haddii contractagooda si qalad looga qaado haddii DHS-ka lacagta ay ka qaadato oo powerka DHS-ka abuse gareynayso iyo dowladda inay dhex gasho ay dadka caawinto ayaa horta muhiimadeeda tahay ma fahmaysaa horta lacagta dadkaas iska leh mid koowaad kuwa watchdog groupka iska leh waxa ku soo haray arintana hadda igu yeertay laakiin meesha magaca kuma qorna ururkaaga no waxa ugu qoran yahay because aniga maadaama hawshii aan qabtay maxaa ururka magaciisa ugu qori weeyay actually marka uu ku qornaa waa laga saaray ma fahmaysaa laakiin muhiimadda waxa way hayo aan aad u soo gundhicayno no may muhiimadda aan waxayna baartaan waa no muhiimadda aan ka hadlayno hayo waxa way ummadan Soomaaliya ka dhalanay maxaa dan u ah seen loo badbaadiyaa taasaa muhiim hayo waxa fiican adiga in energy-gaaga aad meel sax geliso waa fiicanta laakiin lacagtani waxa ka dhigtay meesha istaarka may qoraalka aad qortay bal noo fasiro af Soomaali aan ku fasirahay marka waxaan ahay magacayga waa hawsha socotay on gadaal ani ka soo galay ayaan sheegayaa in aniga qayb ka qaatay intaas aan ka lug lahaa musuqmaasuqana aan ka soo horjeedo arrintan aan ka hadlaayo inaan hadda kor la xiriiray million times وفصل million times no maya DNC da no fiiri hayo adiga hadda soo TV Harvard ka qabanaysaa no no adiga soo TV ma joogtid TV gan ani adiga community-ga Soomaaliyeed soo ma fiicneen intaadan nimankan xajirka ah ee Republican-ka ah oo waxooda watay intaadan كينين أنا ما كين الهرت فيري every time حتكون هذا فيري هذا مجال فيري no هذا مجال واحد جوجا هذا عن كل هذا لايو نمر ريبورتر سيا جوجا أو كاليفورنيا كيبت أو جورناليست عادي إذا جيس دي أو election يويمد وحاسي يويمدين أنا ما كينين أيها إسكود يويمد يعني لبر مركي دعدي مجال وريال أبوحي أنا ما كينين أنا ما كينين وقت الشباب أنا ما كينين وحكوا غلطان تهاي ما فيري فيسيلتيجا يا سي كوميونيتيجا كل عقلان no let me finish أنا كليجينا إما ورستان or multiple people أي لا هبلان هذا كهرة إن من ستارت اب بيوك لا فريستان دعوة حقوق قبض عمر جمال ارتكل ديسا محبة برش قريسان waxaa lagu yiri idikana soo qorta liidi marka hadda aad ku hadlaysid su'aashaada waxaan rabaa James community Soomaali ma yaqaan Riverside ma yaqaan waa qaldan tahay suuqa xaafadda Soomaalida ma yaqaan dadka ma yaqaan waa qaldan tahay laakiin markuu u yimi waa qaldan tahay yaa soo dhaweeyay waa qaldan tahay Zakariya waa qaldan tahay waxay leedahay James uu iska yimi oo yiri kaale lacag la qaataa waxa noo sheegay waa qaldan tahay you totally wrong waxaa ku qaldan tahay waxaa ku qaldan tahay waxaan maqli jiray sheeko ah let me finish maya saddex nin oo mid curyaan yahay midna indhala yahay midna qaawan yahay oo sacbaa seeri kiciyey suu yiri aan roorna aan jebino kii qaawnaa wuxuu yiri ama ana la furtaa adi hadda isdhehaysid no zakariya fiiri zakariya si fiican waxaan ku yiri aniga fiiri ninkani Soomaalida ma yaqaano yaa u fududeeyay maya waxa ku in Soomaali soo dhacdo waa adiga zakariya waxbaan ku sheegayaa ma diidan tahay waa qaldan tahay inaad u fududayso waa qaldan tahay يا ترجمي وقلدن تاعي يا ترجمي ما في رصة عجلك يا داود يا ترجماي هذا يا ترجمي يا كلو ترجماي هي يا كلو ترجماي شاك ما يا كلو ترجماي شاك مركو عيلة نو سؤال كجواب يا كلو ترجماي أنا ترجمي ما يا كلو كجرا ترجماي يا كلو كل ترجماي هذا يا ترجمي يا كلو ترجماي كله يا أو ماي جاد أنا ترجمي وقلدن تاعي دي قبل أنا هذا قبل شيء ما يا قبل شيء ما بقى سا ما بقى شاك وح أنا نو ما بقى سا ما بقى إيش شاك أنا ترجمي ما يا كلو
شاك وعجب dadka waa fiirsadeen شاك abaqina شاك anida fiir ma شاك abaqina adigu waa ku arkay no codkaaga aniga ma ku dhaho ani ma ku dhaho ani ma sameeynin waxaan ku dhahoyaa yaa kala turjumay yaa waay ma garan karo ma garanaysid codka un baa maqlay okay qofka lagu turjumo marka qofka lagu turjumo laazim ma de qofka lagu turjumo no ma qofka lagu turjumo sama waxaan wax Soomaali looga horsoo jeeday ma ka fiirso su'aasheed ma ka fiirso qofka lama turjumo yes or no ani waxa daawo qof kalena ma ku aragto oo turjumaya yes or no labadiina turjumo labadana adiga gabadhana wali wax kale ka hadlaysaa no waxaan ku dhooyaa marka waxaad ku qaldan tahay gabadhana Soomaali hadlaaya no gabadhana fiiri gabadhana qalad ma sameeynin wiilkana qalad ma sameeynin ninkan aad sheegaysidna hadda aan kula fadhiyo sida Riverside ka hadlaysay Boosaaso iyo Garowe iyo Xamar iyo Hargeysa ayaa Soomaalida sariirahooda waxay ku sameeyaan la ogyahay waa gartay iska dhaafay agentiska oo Etoobiyaanka ah iyo Mareykanka CIA-da ya dhageysadda waxaan ku sheegay marka adi hadda isdhehaysid fiiri maya adiga no let me finish let me finish waxa tiri FBI CIA waxay ogyihiin waxa ka dhacay Soomaaliya waa run woogi adiga marka FBI CIA Mareykanka miyaad u shaqeysaa aniga waxaan ku sheegaa ma kaaga jawaabaa aniga uma shaqeeyo laakiin ninka weyn oo wax garadka ah oo Ilaahay aqliga saaxiibka uga dhigay oo Iraaqiga ah ama Syriyaanka ah wuxuu og yahay in wadankiisa xuduntiisa la dhex fadhiyo ayuu og yahay doqonka ma oga laakiin ninka marka oo maskaxda leh markuu waxa saas ku fahmay kan doqonka aan fahminin wuxuu leeyahay see ku ogaatay war aniga waxaan ku ogaaday waxbaan akhriyaa Ilaahayna aqli u siiyay marka hadda wax la akhrinin oo Ilaahayna aqli ku siinin oo inta fadhiya ya gurigayga anoo jooga ayaan waxaan qiyaasi karaa wax wadankayga ka socda ay qiyaas karaa aad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan halkan kala soco wararka ka dhaca gobolka Minnesota iyo nawaaxigeeda bogga wararka Minnesota TV waan ku baahin doonaa dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhaca gobolka Minnesota haddii aad soo raacdo warar muhiim ah ayaanu ka qabtiri doonaa channel aad baanad u mahadsantihiin